Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada mawduuceena maanta. Aan ka horreysiiyo hordhac yar ku saabsan mawduuceenan intaanan u gudagelin muuqaalkeenan. Barnaamijkeenan wuxuu noqon doonaa mid ku saabsan xogo u badan in aanad hore u maqal uguna magac darnay ma og tahay, kaasoo noqon doona taxane. Ma og tahay in boqortooyadii uu Alla ku galaday Nebi Suleymaan ay dhisnayd muddo dhan 40 sano? Ma og tahay in kelmadda muslimuun ay qur-aanka ku soo aroortay 41 jeer? Ma og tahay in nebigu sallallahu calayhi wasallam noloshiisa oo dhan uu soo xajay hal mar? Ma og tahay in magacyada qaaradaha adduunku ay ka bilowdaan ereyga ay ku dhammaadaan marka laga reebo labada qaaradood ee Ameerikooyinka? Ma og tahay in qanaacada midda dhidig oo qura ay wax qaniinto? Ma og tahay in ruuxii horreeyay ee qalin wax ku qora uu ahaa Nebi Idriis? Ma og tahay in xayawaanka keliya ee 4 jilib lihi uu yahay maroodiga? Ma og tahay salaadii u horeysay ee Nebi Maxamed tukado in ay ahayd salaada duhur? Ma og tahay in ninkii soo saaray hotmailka uu ahaa nin Hindiya oo lagu magacaabo Subeer Bahatiya? Ma og tahay in madxafka ugu weyn dunida uu ku yaallo waddanka Masar, gaar ahaan magaalada Alexandria? Ma og tahay in xayawaanka lagu magacaabo gereyga ama halgereyga uu dhalo isaga oo soconaya? Ma og tahay in xayawaanka maroodigu uu yahay xayawaanka keliya ee aan boodi karin? Ma og tahay in haluhu markii aynan dhalin la yidhaahdo abeer? Ma og tahay ereyga rasuul inuu qur-aanka ku soo arooray 368 jeer? Ma og tahay in markii hore internetka loo yaqaanay ARPANET